الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشر كي لحية سيديتناد يا كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. دواعي الهوى. هل كان شيخ وحكوح السياح حكمة عوان لوغا دغاي qofka hawadiisa inuu raaco iyo inuu dhumo waxyaabaha u yeedho oo keena maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn acdamu muxaramaati alhawa wa dawaacihi halaatha waxyaabaha muxaramaadka ilaahay xarimay ashyaada ugu waaweyn oo dadka ay ku dhumaan waa 3 shay buu ibnu qayim kusoo ururiyey. waxaa ka mid ah annadar, waa eegmada in wax ilaahay kaa xarimay aad fiiriso waa waxyaabaha lagu dhumo. tan labaadna waa istimaacu lghina, waxyaabaha heesaha iyo muusikada iyo dhagaysigooda iyaguna waa howl kale oo dadka dhumisa. ta saddexaadna waa shurbul khamr, waa khamrada cabitaankeeda. فهذه الثلاث هي أقوى أسباب العشق والفجور. arrimaha saddexda ah waa waxyaabaha ugu xoog badan asbaabta cishqiga iyo faajirnimada iyo dhumitaanka ee albaabkii zina iyo xumaamna laga gala ihi waa arrimahaasa ugu xoog badan. ayib, haddaba aqwa asbaab alcishqi fujuurka iyo annafs alamaara, nafta iyaduna xumaanta tusinaysaay way jecel yihiin saddexdan arrimood. shaydaankuna waxaa la yidhahdaa nafta wuxuu uga yimaadaa saddexdaa albaab buu ugu jecel yahay inuu kasoo galo. eegmo xaraama, maanta adduunka waxaa lagu fasaxay wixii xumaan ahay oo dhan. internetkii haddaad furto, meel walba haddaad furto, alaflaam alkhaliica ee aflaamtii xumxumayd iyo websaydyadii xumxumaa iyo qashinkii oo dhan baa ka wada buuxa oo aan dhib badan loo maraynin. ayib, haddaba naftii shaydaanku albaabkaasu kasoo gelayaa. waa albaab ee jebinaya ruuxda iyo naftii qofka iyo qalbigiisii jebinaya weye. haddaba saddexdan arrimood oo ta ugu horeysa annadar layidhi, nadrigu eegmada xaaraamta ah oo waxaasuu qofku arkaya waa sahmi oo saa'iba baa la yidhahdaayo waa leeb la gamayo weliba meeshii asiibayo wey. nin gabayaa baa wuxuu dhahaya nadratun fabtisaamatun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaau. nadra, wax waliba waxyaabaha xumaanta iyo zinada marka la fiiriyo waxay ka bilaabmaan baa layidhi nadra ayay ka bilaab eegmada nadra. fabtisaama, haddana waxaa kusoo xiga isu qosol iyabaa kusoo xiga nadratun fabtisaamatun fa kalaamun in la isla hadlo, fa mawcidun ballan la dhigto, fa liqaau la kulmo, xumaanna halkaas ay ka dhacdo ayaa ku xiga. arrinta labaadna waa alghinaa baan nidhi oo waa iyaduna waxaa weeyaan heesuhuna yumbitu nifaaq fi lqalbi. ghinuhu iyo wuxuu ku dhaliyaa qalbiga ayuu wuxuu ku dhaliyaa nifaaq iyo qofku munaafiq buu noqdaa. ka saddexaadna waa alkhamru, iyaduna waa umul khabaa'is, xumaan oo dhan bay hooyo u tahay. sukna aljanna, macluumo kale sheekhu oo jannada iyadana lagu sheegay iyo degaankeeda see loo degaa jannada. man shaaa, qofka raba an yaskuna riyaada aljanna buu yihi ibnulqayim fi dunya, adduunkaba ruuxa raba inuu jannada uu dego ha ka dhigto majaalis adikri, meelaha dikriga lagu haya khayrka ha ka dhigo meeluu dego. fa inaha riyaadu ljanna, halkaasi waxaa weeyaan beertii jannada weeyaan. idaa marartum biriyaadi ljanna fartacuuha, rasuulku wuxuu yihi haddaad soo martaan beeraha janno daaqa oo ha ka tegina. waxaa yihi qiila yaa rasuulallah wamaa hiya riyaadu ljanna, maxay tahay riyaadu ljanna? wuxuu yihi waa xilaqu dikr. saxiixu tirmidi, sheekh alalbani saxiixiyey, uu xadiidkaas ku sugan yahay. waa meelaha dikriga lagu hayo ee dadku iyagoo iska soo horjeedo fadhiya aad aragteen. marka majaalisulcilmi, meelaha cilmiga lagu hayo, iyo xilaqda dikriga meelaha lagu hayo waa xayaatu quluub, qalbigana nolol bay u tahay, naftana daahir bay ka dhigtaa, sacaadana qofku adduunya aakharaba waa ku dareemayaa. waana xadiidkii arag rasuulku u lahaa majtamaca qowmun fii beyti min buyuut illaah, ma jiraan dad ku kulma guryaha ilaahi ah oo ay yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu fiima baynahum, kitaabka ilaahay ay ku aqrinayaan, tafsiir ha noqdo, qur-aankii ha noqdo, kitaabka ilaahay ay ku aqrinayaan, ilaa nazalat calayhim asakiin, waxaa kusoo degi deganaan baa kusoo degi, waqashiyathum raxma, raxmad baa daboolaysa, waxafathum almalaaika, malaaigta dhinacyada ka istaagaysa, wadakarahum allahu fii man cindi, ilaahayna wuxuuba ugu faantamayaaba malaaigta cirka joogta baa laleeyahy bal dadkaa arka. xadiid aada u qiimo badan oo imaam bukhaari baa isaguna wuxuu ahaa xadiidu halaatha, 3 nin oo xilqadii ama meel wacdi lagu hayay rasuulka sal alla alay wasalam soo maray oo soo fadhiistay
marka saddexdii midi wuu laabto uu iska dhaqaaqay markuu dadka saa u fadhiya yimid oo lagu jiro khayrkii la baranayaba iska jeedsaday. midna intuu dadkii ka xishooday buu halkaa dambe iska fadhiistay. midna wuu soo ciidhsaday safkii. rasuulku wuxuu yihi sala allah alay slam saddexdood midba wax ku sheegay. wuxuu yihi kan ka jeedsaday dadkoo ka tegay acrada fa acrada allahu canhu, wuu jeedsaday sooma, ilaahina wuu ka jeedsaday, naxariistiisi iyo raxmadiisi rabbi waa ka daystay kaa. midna wuu xishooday oo dadka inuu dhibo u dhex galo uu safka isku cidhiidhiyo ka xishooday oo isaguna istaxya allahu minhu, ilaahay wuxuu ka xishooday ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa oo ka xishooday isagana. midna wuu soo dunmay oo fa aawa wuxuu soo galay jalsadii iyo fadhigii, aawa allahu, ilaahay baa soo dumay isagana, kanafkiisuu soo geliyey. marka saasaa waxaa la rabaa meel khayr lagu haya haddaad aragto ama kitaab la aqrinaya haddaad aragto, fadhiiso oo khayrkaa ka qayb gal insha allah. ilaahay subxaanahu watacaala dadkaa wanaagsan ee ilaahay u soo dumay oo ka qayb gala khayrkiisa oo sakiinada iyo kusoo degtoba naxariistu allah inagu daro. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiik.